caafimaadka iyo maanta todoba cisho waxa soo kordhay horta waxa hawl galay mashiinkii baadhayay xanuunka iskaankii baa shaqeeyey wuxuu inoo sheegay war cusub oo xaqiiqo ah oo ah inuu cudurkii ku faafayo bulshadeena si xawli ah awal hore maynaan ogeyn qof xanuunsado aada u bukoodo mooyaane oo soo dhaca oo dabeetana candhuurta iyo dhiiggiisa arka mooyaane iyo intaynu dadka ka qaadna dheecaankooda in la diro oo 10 cisho la sugo mooyee maynaan haynin xaqiiqada ah siduu gudaheena uga fiday kolkaa mashiinku wuxuu sheegay intii la baaray imika labada cisho u dambeysay waxay gaadhay tirada 40 qof dadkii la baaray ee mashiinku baaray waxay noqdeen 40 qof baa soo baxay oo kala ah 30 raga 10 dumara waxa kale iyana soo baxday cudurkan waxaanu maqalaa dhalinyarada ma dilo da'da ma taabto da'da ma galo maya waxa soo baxday da'da waxa ku leeyahay in loo siman yahay da'da weyn iyo da'da yarba labadaba rag iyo dumar da'da imika ugu badan ee uu jiro waa 25 konton inta u dhaxaysa halkaana waxa muuqata dadkii xoog ahaa inuu saameynayo gobolada kolkii la baaray dhammaantood waa lagu wada arkay calaamada dhibaatada aan doonaya inaan inoo sharxo waxa weeye waxaa hore loogu kala maraa dowladuhu sida ay dadkooda u baaraan dabeetana ay u kantaroolaan qofka xanuunka sida masalan waxa weeye qof baa la helay inuu xanuunkaa qabo waa in la raadiya dadkii ula xidhay oo dhan waxaa laga yaabaa inay 50 qof gaaraan ugu yaraan masalan 5 qof buu la xidhay mid suuq kula kulmay iyo mid guriga kula kulmay waxaynu eegaynaa markaa inuu qof waliba 5 kale la sii kulmay waxaana ku xidhan tahay muddada uu qofkaasi aan la soo qabanin marka hadduu 2 cisho qofkii hebel baa xanuunsaday maalin buu ku jiray magaalada 5 qof buu la kulmay 5tii qof maalin kale ayaan iyagana la soo qabanin iyaguna ma 5 kale la kulmeen maalinta kale ku daraana 5 kale 100 bisaa ku gaarayaan boqolaal marka waxay cudurka dadka gaadhay hadduu dadkii gaadhana waxa fara badanaysa markaa inta uu dilayo ilaa dadka isku wada ma aha xoog jirka isku wada celin kara isku wada duruuf ma sidaa darteed dadka ka baalkan ka adkaaday imika Afrika iyo geeska Afrika Djibouti baa tusaale wacana markaa taynu doonayno inuu fahamno waxa weeye maanta xanuunka aynu iska baarno inagoo caafimaad qabana aynu check samayno marka la ogaado goor hore inaad xog qalbi wad ka adagtahay muddo ma dasanaysa boqolkiiba waxa laga yaabaa 2-3 qof inay ka wada kacdinta kale laakiin haddii adoo sida oo isagoyn aad dadkii wada gaarsiiso oo kii daadaha iyo kii taag daraa iyo kii dee wax qabay ama uu kugu raago dhibaatadaas u keenay waxyaalaha weli inagu jira waxa kamid ah in abiya ceebta oo la qarsada hebel koofi uu qabaa wax weyn bariga oran waa TB wax weyn AIDS war waa cudur yimid oo baraad ku dhaca marka waa inaynu dhammaanteen u eegno horta in la isbaaro ta kale qofkii og la baaray positive noqda waa inuu soo dhowro xakameeyo oo caruurtiisii walaalkii aabihii jaarkii macalinkiisii waa inaan fidmaynin saddex maadaama aynaan hayn mashiino badan oo wax baara magaalada ku dheeraan inoo olin waxa waajiba si aynu taa uga baxsanay ilaa isma hubnay 4 sano wada shaqeynaya war isma hayno maadaa sida qof walba waa suurtagal si haddaba taa loo galo af walba 3 qodob baa la isku waafaqsay kala fogaada afka xidha farxasha adduunka maanta taas ku midaysan waa sida quraha lagu yaray kara fadiisa saddexaasa inoogu muhiimsan in la yeelo cudurkani waa aafo haddii imika dagaal dhaco ama duufaan dhaco ama dab kaco qof waliba wuxuu iloobayaa dhaqasho waad iloobaysaa bakhaarkaagii waad iloobaysaa xawaaladaadii waad iloobaysaa iskuulkaagii waad iloobaysaa xafiiskaagii qofku wuxuu ku cararayaa gabaad meeluu nafta kula eerto gabaad u daydaya waar dab baa inagu soo socdo kacadhi colba ka hulaaciya xaggee ka galaabaa taala daad baa waxba qaaday xaggee buuraha aanu koraa nafta kula eertaa taala waa dagaal oo ciidan baa inay eriyanayo oo tan la leeyahay xaggee nafta kula gabada
horta kane intii oo dhan buu la nuuciyey waa cudur qarsoon oo aynaan arkayn oo aafaa oyna dilaya markaa nafta xaggeen kula eertaa waarseen uga badbaadnaa waa saddexdaasu kala fogaada afka xidha faraha maydha dawo kale male qof waliba marka uu ka cararayo dagaal duufaan dab iyo wax lamid ah lex jeclo ma dareemo alla xoolo dukaankan ka soo qaata ma idhahdo alla carruurtayda iskuul ma laha ma idhahdo waan gaajoonayaa ma dareemo haraad ma dareemo wuxuu og yahay oo ku ducaysanayaa ilaahow maanta colaaddaa iga badbaadi ama dabkaa iga badbaadi ama duufaankaa iga badbaadi waayo wuxuu og yahay hadduu ilaahay ka badbaadiyo intaa inay dhaqashay dharigba u dambeeyaan oo dhaqan doono kana tibu la midi maanta waxa ma jiraan waa iska shaqaysanaya waxa ma jiraan waxana wadaya waxa la og yahay inuu mid walba ka balaysan yahay marka waa inaynu nafta u sheegnaa inuu la mid yahay aafooyinkaa kaloo kale oo ayna ku dhibin gaajada meheradaadii xidhantay carruurtaadii iskuul laga joojiyey weliba waxay noo dheero ilaahay mahadiya inaad hel in lagu leeyahay gurigaa ku nagow oo isku qari oo gurigii laga qaxinay waan cadu koriyeenay sidaa daraaddeed waxaynu ku soo koobaynaa hadalkeena maanta in badan baa laga hadlay waxa inoo dana oo naftaada u dana qof walba oo u danata carruurtaada jeceshahay iyo waalidkaa iyo xaaskaaga inaad raacdo talada dhakhaatiirta maalin walba inaad daba joogto dadku waa danley maalintii bay arsaaqa doontaan intu way jirta intaba inagoo fulinayna aynu basaru ku daro basar afkee lo xidho taabashadii badnoo la joojiyo haddii wax la iibsanayo la kala yar fogaado haddii la shaqo tagaayo meesha la shaqo tagaya aan la isku boqono la shireen la kala fogaado intaasuu caafimaadkeenu ku xidhay iyo in la ismaqlo waxa intaasoo raaca waxa qura oo inu maanta inagu waajiba dhammaanteen inaynu isxambaarano waxaan uga jeedaa inaynu iscaawino dhakhtarrada badankooda bilaash bay ku shaqaynayaan xataa dhalinyarada ka shaqaysa ee neeras leh ee laboratory leh badankoodu voluntary bay ku shaqaynayaan haddana inay cudur qaadaan iyagaa ugu dhow kama baqaan dalkooda u adeegaan siday kuwaas naftooda u hurayaan sida ka ciidanka xadka joogaa naftiisa ugu huraya inaan xadka la soo gelin sida askariga habeenkii oo dhan wareegaya tuuga ay dagaalamayaan naftiisa ugu hurayaan dawlad ku seexato qof walba muwaadina waxaa laga rabaa wixii uu hayo inuu wax ka bixiyo waxaa la hayo aqoonta ugu badan qofkii aqoon leh aqoonta ku deeqo xoogaagaa ku xiga wax ku tar xoogaaga waa loo baahan yahay wax ku tar hadday nadaafad noqoto jilicsan ururintii hadday noqoto wax sheeg hadday noqoto hawl xoogaaga wax ka tar adduunkaaga wax ka tar awoodda aad leedahay ee xukunan wax ka tar xanuunkaasi loo yeelan lahaa taana waxaa leedahay dhammaanteen intaas anagu waajiba dadkeenu aad uma dhegaystaan waanada weli halis uma arkaan daraad koyton baa la helay positive shalna kobitan baa la helay xalayna 6 buu soo saaray waana tiro yar tiradu baadhaa waa 80 waa 100 meelaha barka war hadii dadka oo dhan la baarinta soo baxaysa oo intaas wada fidinaysa marka war oo inagu fidaayo marka waxaan ku soo koobaya ninkii oran jiray Cabdilaahi Dhoodaan ee gabaaga ahaa ayaa waa gabaaga ka dadka waariyo bari ka yaaba dhaga adayga Soomaalida gabay aad u qiimo badan oo malaha falsafad weyn oo dadka dhan ogol yahay ayaa araartiisa ku jirtaa gabayga la dhugasho oo aad u xubad badan marka wuxuu yiri runtii loo dhakaabiyo kuwan dhaabada u sheegay runtii loo dhakaabiyo kuwan dhaabada dhakaabid iyo dhaabad israaciil yaani wax kasto wax lagu rumaysto dhaar cilmi aqoon sharaxaad faahfaahin tusid runtii loo dhakaabiyo kuwan dhaabada u sheegay يعني هو هذا محل هذه حقيقة فورمولا مركز الدكتور على هو حقيقة 2+2 و4 والساينتفك مركز وحنا كنا شنو تقول لك هذا كون نابض ولا شيء نيك نختارك أدوك وحريفسن رجع وحريفسن PhD من بهرك شو وعمره فاف سوى بوشرح أدوك هو بس راعي محاكم معنا إنك ورئيس كرافية مين يرقبه مركز وحوري شنو تقول لك هذا كون نابض ولا شيء أنت dharaariyo habeen qayladan kor u dhawaaqay wariyaaray balakhtartana wax qayla ka baxaysa balwaanada eeg aroorba wasaaraddu hadlaysa dharaariyo habeen kuwan
kor u dhawaaqay waxaan kor u dhawaaqayay warkada ayaa lahaa inta dhinac maraysa